xisbiga wadani wuxuu muddo dheer ka hadlayay dhibta uu keeni doono saldhigga military ee dowladda Somaliland ay leedahay waxaanu la gelaynaa imaaraadka. waxaa dhacday maalin dhaweyto doon dad badan oo reer Somaliland ay saaraayeen oo u bixi dalka in gantaal lagu dhuftay. dadkaasina xukuumaddu ilaa maanta aanay ka hadal, aanay tacsiidaynin, aanay wax dacwado oo caalamka ay u gudbiso cidda u gudbisay aanay jirin haba yaraatee sida ummadda reer Somaliland iyo warbaahintiba ay ka markhaati yihiin. aad iyo aad baan uga xunahay mas-uuliyad darrada ay xukuumaddu muujisay ee ubaxeeda lagu laynayo badaha. aanay marna ka hadlayn, wax tixgelinana aanay siinin. waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay si degdeg ah arrintaa uga hadasho oo ay caalamka u gudbiso, iyadoo ay tahay foorihii u horreeyey ee saldhigga military iyo dhibtii saldhigga military aanu ka qaylinayna xisbiga wadani ka qaylinayay midhihiisa uu kaaya. waxaana dhaba in Somaliland hadda sidaa loo garaacayo dadkeedii loo laynayo badaha aanay lahayn wax difaaca, isla difaaci karin. dhibta intaa leegna ay Somaliland keentay, horena aanay u dhicin intii dalkani jiray. Somaliland gobonimadiisa la soo noqday aanay marna dhicin wax dhibaato ah oo doon qallibantay iyo tuiskeedu dhacday mooyaane gantaal lagu dhufto. si amnigana aynu u mari jirnay badda, aanaynu ka ahayn dhexdhexaad. dagaalka ay nala doonteen xukuumadda maanta dalka ka talisaa ee ka socda khaliijka Yemen ay ku shiraakoobeen xulafada uu hogaaminayo Sacuudigu ayaana u sababa, iyo Iiraan oo iyaduna dhinaca kale ka soo jeeda. marka dhib aynaan lahayn ayaynu lugeeyna ku doonanay. aad iyo aad baan uga xunahay. waxaan ummadda dareensiinaynaa inay tani tahay foorihii u horreeyey inay noqonayntii u dambeysay. xukuumaddii waxaa ku jirtayna ilaa maanta wax tallaabo ay ka qaaday aanay jirin haba yaraatee. waxaanu halkan uga diraynaa tacsi dadkii iyo ubaxii ku dhintay badda. waxaanu leenahay waalidiintii iyo asxaabtii iyo ehliyadoodii ilaahay samiriyo iimaan ha ka siiyo. ta kaleanu ka hadlaynaa waxa weeye arrinta abaaraha Somaliland. waxaanu caalamka ugu baaqaynaa inay usoo gurmadaan ayagoo xoolihii ay ka dhammaadeen, haddana ay marayaan in dadkii u dhinto oo leedo siiba gobollada bariga Somaliland oo runtii aanay xukuumaddu sidii loo baahnaa iyo si u dhowtoona aanay ka yeelin. gurmadkay filisayna aanu ahayn gurmad u cuntama ummaddaa dhibta haysa. waxaan u aragnaa runtii inay xukuumaddu dalxiis ku jirto oo abudabey waxaad moodaa in abudabey laga xukumo xukuumaddeena oo abudabey ka shaqeeyaan wasiiradeena oo halkaa amar ka soo qaataan. waayo 24 saacadood waxay u kala baxayaan abudabey oo ay dalxiis u tegayaan iyagoo dadkoogii maranayo intay xoolahoogii dhammaadeen. bitroolkeenu haysanina xoolaha ahaa, xoolihii dadkii baanay waruhayn iska daa xoolaha u gurmadaan. wajaale istoodhada xidhan ee ummaddu ka qaylinayso ee laynoogu tabarucay ee ummadda lagu caawiyey ee ilaa maanta dadka ka qaylinaya laleeyahay war raashinkan meesha yaalla dadkii ka soo qaxay bari ee wajaale joogay leeyahay war nasiya. waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay furto oo ummaddii loogu talagalay ee Itoobiya ay siisay la gaadhsiiyo. waxaa kaloo ka hadlaynaa sicir bararka. waxaan ku celcelinaynaa oo sheegaynaa inay xukuumaddu waddo inay iyadu ka aabba tahay in lacagtii doolarkii ay ashkhaas ugu shubto lagu dejin lahaa sicir bararka oo aanay bangigii Somaliland loo sameeyey aanay marin. waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa inay lacagta bangiga ku shubto ay ummaddu leedahay oo ay ka dayso ashkhaastay ku naasnuujinayso ee ugu shubayso si sicir bararka bangigu ula dagaalami karo. aanay xakamayso oo ay joojiso daabacadda lacagta xad dhaafka ah ee habeen walba intaynu u baahannahay intay yidhaahdaan ay soo daabacayaan.